السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان وإذا سلام يا داودياش إذا قالي ميل كستات شوكتان وسكرية محمد هل كان نقدر ونسأنا وسكرية ميديم برودكشن آديات باندي سلام من دمانتين ما أنت وحمرتين وندين هنا أبوان داير ونقول كلنا مقالة برعو ولا يدهده أبوان مختار محمد شامع ولكم قاعدين هالغبسي وحال كان اللي وذاك دونا دور مانسو يجبيه وأبوان داير haddana heese badan uu leeyahay fanaaniin fara badan oo Soomaaliyeed ay qaaday aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin ku soo dhawaada assalaamu calaykum magacaaga saddexan ku bilow assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatu sidoo kale waan salaamayaa Sakariyo bulshadana waan salaamayaa iyo inta ku xidhanba magacaygu waa Muxtaar Maxamed Jaamac ku magac dheer halqabsi ku nool gobolka Togdheer marka waan dhawahay saaxiib soo dhaweynaya sidoo kale halka waxaan ku qabanaa Abdullaahi ka dhigo maansooyin iyo gabayo isugu jira waano iyo dardaaran iyo xaqiiqada dalka taagan waqtigu ugu horeysay aad bilowdo ama aad isku aragto hibadan gaarka xilli ma ahayn saaxiib wallahi deehi kulli in badan waan jeclaa inaan suugaanta galo oo wax fara badan hamigaygu ku jirtay inaan suugaanta soo galo oo ma garanaysaa gabayadana yaraanteedii baan jeclaa iyo ma garanaysaa suugaanta dhanba yaraanteedii baan aad u jeclaa marka adigu fakarkan xilligu ugu dhashay ilaa 2009 meelahaas ay ahayd qiyaastii laakiin xilligan wax xurunta bilaabay ma fogeynba waa ilaa 4 sano ka hor maxaad nooysaa markaas ka la wadaagaysaa markaas waxaan ugu hayaa horta marka hore asxaabtaadana aad iyo aad baan u salaamaya qiimaha leh sharafta leh kugu xidhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxaan idinku haynaa suugaan kala duwan gabay magaciisa leh aflahaar baan halkan idinku hayaa aan ugu horeysiinayo Abdullaahi ka dhigo gabaygan waxaan tiriyay bishii 6aad 12keedii 2011 sagaal sano ka hor bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabayaa gabaygan aflahaar oo ka hadlaya aafada maanta Soomaaliya oo dhan haysata gaar ahaan gabaygu xuquuqeeya gobolka Togdheer Burco oo raggu magaranaysaa u dadaali lahaay u shaqeyn lahaa ay seexdeen madaxdiina ka wada magaranaysaa ka wada taakada ka wada dhacday iyo dalkiyo gabigiisu noqday galbeed u noqday imika galbeed dawladdu galbeed ba soo dhaafay oo aan xaggan boo soo dhaadhacaynba iyo bariyo hurda markaa uu baraarujimo gabigan isku jira iyo Soomaalida aafada maanta haystay iyo dhibka uga dugaya gabigan wuxuu ka bilaabmayaa afgobaasi been iyo amuur lala asqoobayo aflagaado aan fariidhigto oo kala socda iyo hadal afun lagu yidhan oo garanaynin afcaalahan siyaasiga xun iyo gaalka laga eegtay waa waxa aflaaqada ku riday aragtideeniye afkaarahan saciida ka badan lagu aflixi waaye goormuu afdhigaya shacbiga weyl ama kaaga afarta asiiba haddana afa kala sheego afsaara afarta asiiba haddana afa kala sheego maalintii afweyniye la riday aarkii talinayay afsaaraha markii lagaga dhigay ololka baaruudda alla ilaahay xornimo lagu aflaxay aasna barigaasi nimcadii af lagu maali jiray aradkan Soomaali afka xuublayaalba ku dagay ayax sidiisii afarteena koono markaan urushay taariikhda waxaan eberka madaxdii ka dhigay lay absiri waaye aqoonyahankan ciidan ka badan yaa afgaranaya waa aafada maanta joogtay si aad barjaayil bay lahaayeen bal aqoonyahankan maanta ciidan ka badan yaa afgaranaya waa kana afarta asiiba haddana afa kala sheego arligeena waa muush haliyay lagu afceliyaa Afrikaadle Ingiriiska iyo Yurub ka soo oohay afqalaad nin lagu ababiyo loo akhriyay keena oo aan afkeenaba aqoon saarnay ubax weyne ala khayse mooyee afkani aashi socon waaye mar hadduu afqaas xaasil iyo odayo soo fuulo afcada ninkii bixinaya waa aftaha weyne wax si aradkan afururka baday waa ibtiladaas afar jeeblahaaga bulshooy oo ku rogay aflahaarkan Soomaaliyeed yaa arbudo maanta afarta asiiba haddaan afa kala sheego afafka Togdheer iyo haddaan eelka sare yaala maalintaan aflabankii ahayn ayra kala baaday maantay afmeer iyo berbera oloshay baaruudu afarteen beelood markay kala ugaadhowday gobolkii aftida qaranka biladan aayar laga goostay ee nabadda lagu soo afdhaqay aayatiin ma leh afyartu u yaala sidii awrta loo raree buxsinbaha albaabadii ku go'anaya afsaar weyne goortii waa ka garoonkii afxidhan aadka loo rabay umiyii ku noolaa wagaa waa afro dhowre goortii afdub lagula kacay u dhaqaaleedka afka awdaleed iyo rag baa aaday meel darane
af waraabe inuu bari ku dhacay waynu aragnaaye mala waa afgaamnida waxaa loo ishaaqsaday afka lagama laadin hadduu inama leeyahay waxba gabaygu yuulo arxile waan abtarayaa afagaalihii dhacay tanaa arami sii dheere tala lagu afeeftamay haddaan aayar laga goosan oo aan galbeed la odhan waa afruqunday maan afruqunday ku jirna haddaan galbeed la iska dhicinin kaasi waa gabaygii maasooyinkaaga maasaka halkan aad nagala socotaan weli waa Sakariya Media Production fadlan asxaabteeda nagu cusub waxaanu leenahay subscribe-ka like-ta iyo commentiga intaba noo dhaafa asxaabtii hore noola joogtayna aad iyo aad baa u mahadsantihiin ku socaabwan bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ka bilaabayaa maansada iyo yuutan oo bulshada ku qusaysa oo magaranaysaa saxaafadda nimika horta loo noqday qof waliba wax doono sheegayo iyo dadkii waxba isku hubsan oo la yaacay wixii arkaanba marka waxaan leeyahay qarankeena Soomaaliland nabadda iyo ammaanka ilaahay ina siiyay nimcada aynu ku jirno ilaashano magaranaysaa dawladdu inkastay dhaliil badan leedahay haddana ammaankeena wax walba ka wanaagsan oo ka weyn marka waxa yeelan dhagaha u taagin dawladana sideeda aynu wada hadalno ammaankeena aynu haysano bismillaahi raxmaani raxiim kan waxa ku bilaabayaa maalshada marka sidan ay u dhacaysaa waa Sakariya Media halkan nagala socotaan like iyo subscribe-ba hanaga hargranina insha Allah noogu booba taa nagu caawiya bulsho iyo maraax noqon sidii yuurta amal u nugul iyo maqdi kasto wixii yeedhaw maqlo yihiisi waraarana hubin intay yuubtaan dhagaha la yaaca wixii kasta ilaahay ka yaabo yiriilic bisayla iyo yiqdiga iyo qeeriga iyo cod kala saaris baro kuwa yuqtaamaya yiqdiga leelo uu nahaar TV-yada yuuqane colaada ku yeedhaye iyo gaadirqi lagu dhiciyo ammaanku la yeesiran yahay nimcada yama laga leeyahay raga yoogaynaya bartiisa yaqaan ha noqon bartiisa yaqaanka iyo yaqaan dhiba ha u raxlayn bartiisa yaqaanka iyo yaqaan dhiba ha u raxlayn yeelalugaday wadaan waxa ay ku yeedhayaan ha u raxlaynina kuwa mucaaradka iyo kuwa kale isku jiraaba bulsho iyo yootanka iyo wax kala yeelashadu markay kala yeelan tahay yeelaha qaranka cunta haddaan geediga yulkamay dhul roob hele lagu yutiqin haddaan geediga yulkamay yegaleel ku wanaagsanay dhul roob hele lagu yutiqin bulsho yaa yuurashadu dadkoo kala yaacay yabaal mugdiga dhashaa adoon yabaal mugdiga dhashaa adoon yibil baahi qabin insha Allah intaas ku waqti maasadu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wali waynu ku sii soconaynaa hal maanso oo jacburo baynu isleenahay insha Allah aynu eegaynaa haddii ilaahay ka dhigo aad baan idiin soo dhaweynayaa dhammaantiin ku soo dhawaada taa jacburkaayna maqashii raxmaan raxiim halkan waxaan ku qabanaa hees aan dhiibayo insha Allah abdullaah karin dhawaan la soo qaadi doono oo la yiraahdo cilmi baarista cayl heesana waa ereyada dambe waqtigan casriga dadku ay jecel yihiin dhalinyarada ay u jeceshahay marka cilmi baarista cayl baa waxay ka waramaysaa jacaylka dhibaatadiisa waxaana ka bilaamaysaa bilowga caashaqa macaan dheh markuu cusub yahay farxaan dheh markuu cusub yahay bilkhayr dheh dareen curashada khafiif dheh cis iyo sharaf iyo maqsuud dheh badheedhaha cugashadiisa ciyaar qof ku soo dhoweeyey markaad ku casuumto laabta cabaar ka bacdi qadhaadhe labadii ceebliis doortay casrigan kala maaransiiyiyo calafkan kala dira cajiibdhe haddaad doontana casaandhe haddaad u qaadan weydana casaandhe badde markaan culimmada su'aalayaan cashar wacan ka qaatay dhibkiisana aan cantuwey anigu cilmi baadhistiisa codkaygii waxaan ku koobay markuu cidlo kula istaagay caqligu keliyaysta nabarka jacaylka calaamadiisu waa farxaan diiriye calaacal cishqiga kala caynbacayndheh dumarka ka ku dhaca ciyaaldheh cilmina kii dilay nin weyndheh anigay ka hayana cawaandheh qof aan cabbin oon qurqurina niyeystay caleemihiisa hadduu cudur fudud ku sheego isaga canjalaad xaqiiqdheh nafuu caday uu ka yeelo nasiibka cagaha u siiban misana caalwaa aqoonin cilaashiyo kaba dambaysdheh markaan culimmada su'aalay ee aan cashar wacan ka qaatay dhibkiisana aan cantuugey anigu cilmi baadhistaydii codkaygii waxaan ku koobay markuu cidlo kula istaagay caqligu keliyaysta nabarka jacaylka calaamadiisu waa farxaan diiriye calaacal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آديات بان دي سلامنا دمان داودياشيدا قاليقا ميل كستو جوجتان نغا داوانيسان
fadlan asxaabtii hore noola joogtay aad iyo aad baa u mahadsantihiin asxaabta cusubna waxaanu leenahay subscribe-ta like-ta iyo commentiga iyo share-ta intaba naga ilaabina aad iyo aad buu mahadsan yahay abwaanka oo maanta marti noo ahaa abwaan mukhtaar oo aad loogu yaqaano halqabsi ku magac dheer dhammaantiin wadi salaamayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu